okay slide kan waxa ku arkaynaa marka typeska beamskeena ay leeyihiin iyadoo loo fiirinayo geometry okay in yani muuqaalkiisa iyo cabir ahaan qaabku u yaalo ma shay isla ega ma shay kala weyna ma shay qalloocna waxaas isla fiirinayna nooca koowaad marka waxa la yiraahdaa straight beam magacaaba ka fahmaysa sida magac uu ku tusaa beamkan waa straight qaabkiisa toosan okay inta badan beamska aan dhismayaasha u isticmaalana waa straight uu ku yiri so marka sawirkiisa da isla aragna beamkan waa straight okay waa toosan yahay from this point up to that point uu ku eg yahay waa straight okay nooca labaad marka waxa la yiraahdaa curved beam magaca sida aad ka dareemaysidba waa curved macnaha waxa ku jiro qalooc okay saas oo kala waa okay beamka waxa loo isticmaalaa meelaha curved placeska ah meel oo la rabo in beamkeena uu qalloocdo yani tusaale ahaan balkon oo saan oo kala rabnaa haddaan rabno tusaale ahaan meeshaas oo kale beam inaan gelino okay waxa uu ku qasbanaa marka inaan qalloocino okay so marka waa meelaha ama shape meelaha looga baahan yahay in curved yeeshaan ayoo kale ayaa loo isticmaalaa beamkan so marka waa kan aha marka fiiriso axis-kiisa marka fiiriso kan maxaa waaye dhinaca ku dherersan axis-kiisa wuu toosnaa laakiin kan waa ujeedaa waa qalloocan yahay so marka kaasna waxaa la yiraahdaa curved beam nooca saddexaad marka maxaa la yiraahdaa tapered beam noocan marka maxaa lagu dhahaa beamkan kan straight ka la mid yahay kii hadda aan soo aragnay laakiin cross sectional area cross sectionkeeda ayaa waxay tahay hal dhinac inuu ka weynaado dhinaca kale okay waa isla arkaynaa marka u fiirso hadda dhinacan height-ka aan ku haysanay iyo dhinacan height-ka aan ku haysanay isku mid miya waa kala duwan yihiin sax soo macnaha ujeedid height-ka soo yaraanayo okay height-kii ayaa soo yaraanayo meeshana dhow marka maxaa galay slope ginger ayaa galay so marka waa saas waa cross sectionka halkan width-ka ku jiro iyo depth-ga halkan ku jiro iyo labadan isma laha okay waa kala duwan yihiin reduced xogaa sectionka xogaa reduce lagu sameeyay okay so marka isagana in isla fahanay ayaa rajeynaya